بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada, agaasimaha guud, agaasimaha waaxidada iyo dhammaan shaqaalaha hay'adda dhowrista tayada. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. marka hore ilaahay baa mahad leh isku keenay maanta inagoo wada caafimaad qabna goobtan. waxa kale mahadnaq u dirayaa aan la soo koobi karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xilkan maanta hayo igmaday ina gartay aad iyo aad buu mahadsan yahay. haddaan xilkan wax yar ka hadlo, xilkani horta waa mas'uuliyad aad u weyn oo ilaahay hortii iyo shacabka Soomaaliland aan u hayo. marka xilkani waa mas'uuliyad weyn, mas'uuliyaduna waa waxaan u arkaa waa ammaano kale, waa ammaano la dhiibtay. ammaanadana saan u wada ognahay waad ogtihiin irka iyo dhulka diiday oo bilaaadmi baa qaaday innagana dusha saaranay. marka maadaama ay saa tahay xil yar maaha, habeenka aakhirana waxaan aaminsanahay in la weydiinayo waxaan ku qabtay iyo saan wax u sameeyay. marka maanta hortiina waxaan rabaa inaan idin ballan qaado idinka iyo shacab weynaha Soomaaliland ku nool oo dhan xilkani inaan markasto oon maadaama hay'adaydu tahay quality control, dhowrista tayada caafimaadka bilaaadmiguna de maaha wax la dhayalsado oo maxaan ku rahdaa markasto aynu cunto soo deynayno amba aynu dawo dalka u soo deynayno aan waxaan rabaa inaan ku fakaro aan markastana u fakaraa maadaama caafimaadku yahay backgroundkayga inaan naf bilaaadmi aan haddii aan wax qaldan soo daayo inuu naf bilaaadmi wax u geysanayo. nafta bilaaadmiguna wax lagu ciyaaro maaha, waa mas'uuliyad xagga Ilaahay iyo meel kastaba ka saaran habeenka aakhirana la weydiinayo. marka maanta anagu ballan qaadkan ka qaadaya waxa weeyaan inaan ku fakaro haddaan wax soo deynayo qofka haddii wax yeelayso in aniga habeenka aakhira laga qabsanayo aanan sida mas'uuliyadeeda u adkaynayo. gudoomiyaha iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxidada iyo shaqaalaha hay'adda dhowrista ay igu soo dhaweeyeen maanta xafiiska aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa wada shaqayn wanaagsan inaynu wada shaqayno iyo gacmo furan. salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.